kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybta 441aad ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faisa, balse miyaad og tahay in 18 May ay tahay maalinta caalamiga ah ee haweenka badda? aad iyo aad Cabdicasiis, waa maalin u dabaaldegta kaalinta muhiimka ah ee haweenku ka qaataan wax soo saarka badda. Waxay sidoo kale maalintani dhiirigelisaa ka qaybgalka haweenka ee dhinaca badda una dooda sinaanta jinsiga, iyadoo sidoo kalena bidhaamisa caqabadaha taagan ee ay wajahaan haweenku. taasi waa sax. sidoo kale maalintani waxay muhiimad gaara u leedahay Soomaaliya maadaama aan leenahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika. waxay sidoo kale muujisaa waxqabadka haweenka Soomaaliyeed ee dhinaca badda, laga bilaabo kalluumeysiga iyo ganacsiga ilaa xaqiijinta xeebo ammaan ah iyo ilaalinta deegaanka badda iyo xeebaha. aad iyo aad halkudhigga sanadkan oo ah badweynta fursadaha haweenka waa mid aad noo taabanaya. badweynteennu waxay haweenka Soomaaliyeed u tahay fursad qiimo badan oo ay ka faa'iidaysan karaan. haddii ay kordhiso haweenka ku hoolan shaqada badda, Soomaaliya waxay albaabada u furi kartaa hal-abuur, waxay kobcin kartaa dakhliga qoysaska, iyadoo sidoo kalena xoojin karta bulshooyinka xeebaha ku dhaqan. si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la qiro caqabadaha ay wajahayaan haweenka ka shaqeeya badda, maadaama ay tahay dhinac ay ku xooggan yihiin raggu, iyadoo caqabadahaasi u baahan yihiin ficil wada jira si wax looga qabto. barnaamijyada ay horseedka ka tahay dowladda Soomaaliya sida barnaamijka haweenka badda ayaa ah mid yadadiilo abuuraya. bilaabidda qorshe hooleedka qaran ee haweenka badda ee sanadkii 2023 ayaa ahaa mid muhiim u ah dib u habeynta siyaasadda, horumarinta kaabayaasha iyo kor u qaadista wacyiga. intaas waxaa dheer, ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ayaa labaduba taageeraya haweenka ka shaqeeya badda, iyagoo u maraya bixinta taageero lagu kobcinayo aqoontooda iyo farsamadooda. tusaale ahaan, xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka daroogada iyo dembiyada ayaa ku tababaray tiro saraakiil haween ah oo ka shaqeeya dekedaha fulinta shuruucda badda. dhaqaalaha buluugga ah ee Soomaaliya wuxuu qani ku yahay kheyraad baaxad leh, kaasoo fursado cajiib ah siin kara haweenka Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan caqabado xooggan. haddaba si aan mowduucan wax badan uga ogaano, waxaa istuudiyaha nagula sugan Ayaan Kaynaan oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka daroogada iyo dembiyada UNODC. Ayaan, waxaad nooga sheegi kartaa ujeeddada maalinta 18 May iyo sababta ay Soomaaliya muhiimka ugu tahay? International Day for Women in the Maritime Sector is observed annually on the 18th of maalinta caalamiga ah ee haweenka badda waxaa la xusaa 18 May sanad kasta. waa munaasabad lagu sharfo guulaha iyo waxqabadka haweenka ka shaqeeya dhinaca badda. waa maalin ku baaqaysa ficil kor loogu qaadayo sinaanta jinsiga, isla markaasna xoojinaysa ka qaybgalka haweenka ee dhinacyada kala duwan ee badda, laga bilaabo xeebaha ilaa iyo badweynta. mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno waa in haddii sidaan wax ku sii socdaan sinaanta jinsiga aan la gaari doonin ka hor 2158. taasi waa 5 jiil oo hadda kadib ah. taasina ma ahan midaan aqbali karo. wakhtigii isbeddelka ma ahan biri, waa maanta. haddii aan dib u dhigno, waxaan halis ugu jirnaa inaan ka tagna jiilal badan oo haween ah. taasi ma ogolaan karna inay dhacdo. dalka Soomaaliya maalintaani micno gaar ah ayay xambaarsan tahay. dalku wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo ka badan 3300 oo kiiloomitir oo ku teedsan badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed. xuduudan ballaaran ma ahan oo keliya hanti juqraafi, waa fursad ballaaran oo lagu xaqiijin karo kobac dhaqaale, ganacsi, amni cunto iyo iskaashi gobol. haddana iyadoo ay jiraan fursadahan oo dhan, haweenka Soomaaliyeed si la mid ah qaybo badan oo ka mid ah adduunka waxay wajaheen caqabado badan oo ka hor istaagaya inay galaan, isla markaasna horumar ka sameeyaan badda oo ah meel ragga ay dhaqan ahaan ku xooggan yihiin. taasi waa sababta ay maalintani Soomaaliya muhiimka ugu tahay. waxay iftiimisaa baahida loo qabo xoojinta iyo sare u qaadista haweenka Soomaaliyeed ee dhinacyada badda. whether they are in the Coast Guard, fisheries. This is why the relevance of this day to Somalia is so vital. It shines a light on the need to empower and elevate Somali women in the maritime fields. maxay yihiin barnaamijyada qaramada midoobay ay taageerto ee awoodda u siinaya haweenka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan dhinaca badda? maxaase guul ah oo ilaa iyo hadda la gaaray? maxay yihiin barnaamijyada qaramada midoobay ay taageerto ee awoodda u siinaya haweenka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan dhinaca badda? maxaase guul ah oo ilaa iyo hadda la gaaray?
In February 2025, UNODC, supported by UNTMIS, successfully organized a 4-day workshop in Mombasa, Kenya. bishii Febraayo ee sanadkan 2025 xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka daroogada iyo dembiyada UNODC oo kaashanaysa howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS ayaa si guul leh u soo qabanqaabiyey aqoon isweydaarsi 4 maalmood socday kaasoo ka dhacay magaalada Mombasa ee dalka Kenya kaasoo diiradda lagu saarayay xoojinta ka qaybgalka haweenka Soomaaliyeed ee badda gaar ahaan dhinacyada hogaaminta iyo saameynta ay ku leeyihiin waaxda amniga badda iyo dhaqaalaha buluuga ah. aqoon isweydaarsiga ayaa waxaa isugu yimid kooxo kala duwan oo ka socda dowladda Soomaaliya. Ilaalada xeebaha Kenya ayaa sidoo kale ka qaybgalay aqoon isweydaarsiga iyagoo muujinaya garab istaag. Muddada 4 cisho ah ka qaybgalayaashu waxay yeesheen wadahadal waxbarasho iyo shaqo siyaasadeed oo baraatikaal ah kuwaasoo looga gol leeyahay xoojinta sinaanta jinsiga ee hay-adaha ku howlan arrimaha badda ee dalka Soomaaliya. hadallada sida gaarka ah ii taabtay waxaa tiri mid ka mid ah ka qaybgalayaasha oo tiri markii laygu casuumay aqoon isweydaarsiga si aan u soo bandhigay xiriirka wasaaradda ee haweenka badda ka shaqeeya ma aanan garanaynin meel aan wax ka bilaabo. dadka ayaan weydiiyey xitaa sidee arrintan isugu xiraa, laakiin tababarka kadib xiriirkan si cad ayaan u arkaa. dumarka boos ayaa uga bannaan howlaha badda waana in codkooda la maqlaa. wasaaradda mas-uuliyad ayaa ka saaran inay burburiso caqabadahan una ololeyso siyaasado tixgelinaya sinaanta jinsiga islamarkaasna u abuurta haweenka wadiiqooyin ay ku horumarin karaan xirfadahooda dhanka badda. waxaa iga go-an inaanan ka shaqaynin oo keliya haweenka in lagu daro howshan, balse waxaan ka shaqaynayaa in awood loo siiyo si ay wax u hogaamiyaan una bulaalaan. I am committed to ensuring that women are not just included but empowered to lead and thrive within this sector. ugu dambayn, sidee ayay ballaarinta ka qaybgalka haweenka ee dhinaca badda gacan uga geysan kartaa kobaca dhaqaalaha? maxayse tahay fariinta aad la wadaagayso gabdhaha Soomaaliyeed ee ku taamaya inay ku biiraan ka shaqaynta howlaha badda? Expanding women's participation in the maritime sector and activities is not just a matter of gender equality. ballaarinta ka qaybgalka haweenka ee howlaha badda ma ahan oo keliya arrin ku saabsan sinaanta jinsiga, waa hab istaraatiijiyadeed oo lagu kicinayo kobaca dhaqaalaha, kobcinta hal-abuurka iyo kor u qaadista adkeysiga bulshada Soomaaliyeed. muddadii aan u shaqaynayay UNODC waxaan arkay awoodda daahsoon ee dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah. markii haweenka Soomaaliyeed la siiyo taageerada, tababarka iyo khibradda ay u baahan yihiin, awood uma yeelan doonaan oo keliya inay horumar ka sameeyaan shaqadooda oo keliya, balse waxay sidoo kale gacan ka geysan karaan horumarinta dhaqaalaha buluuga ah iyo xoojinta maamulka badda. haweeney kasta iyo gabar kasta ee Soomaaliyeed ee ku taamaysa mustaqbal wanaagsan oo dhanka badda ah, waxaan jeclaan lahaa inaan ku iraahdo badda waa ku sugaysaa. waan dareensanahay in waddada ku sugaysa u muuqato mid culays badan. caalamka badda wuxuu in badan ahaa meel codka haweenka aan la maqal iyadoo waxqabadkooda indhaha laga dadbo, laakiin maanta waxaan taaganaha hortiina anigoo aan ahayn keliya dumar balse ah qof ka dharagsan awoodda baaxadda leh iyo adkeysiga haweenka Soomaaliyeed. awooddaas oo ah mid u ballaaran sida baaxadda badweynta aan ka hadlayno. marka aad eegto badda waxaa laga yaabaa inaad aragto masaafo aan dhammaad lahayn, laakiin waxaan rabaa inaad aragto wax intaasi ka badan. waxaan rabaa inaad aragto fursad. When you look at the sea, you might see an endless horizon, but I want you to see more than that. I want you to see possibility. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Ayaan Kaynaan oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka daroogada iyo dembiyada UNODC oo marti noogu ahayd barnaamijka Tubta Nabadda. balse iminkana aan u gudubno waraysi aan la yeelanay Ikraan Maxamed Cabdulaahi, agaasimaha horumarinta shaqaalaha iyo arrimaha haweenka ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee Soomaaliya. ugu horreyn waxay ka jawaabaysaa su-aal ku saabsan barnaamijyada ay dowladda Soomaaliya hormuudka ka tahay ee ku aadan kor u qaadista haweenka ku howlan badda iyo guulaha ilaa iyo hadda la xaqiijiyey. wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin istiraatiiji ah si kor loogu qaado ka qaybgalka haweenka ee dhaqaalaha badda. waxaa ka mid ah qabashada shirar heer qaran ah oo lagu xoojinayo doorka haweenka ee kalluumaysiga iyo maritime sectorka guud ahaan, taasoo horseeday isdhexgal ballaaran oo ka dhexeeya wasaaradda, haweenka ka shaqeeya badda, iskaashatooyinka, ganacsatada maxalliga ah
iyo hay-adaha dowliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Mid ka mid ah guulaha ugu muhiimsan waa qorshaha lagu dhisayo National Forum for Women in Fisheries and Blue Economy, kaasoo noqon doona madal rasmi ah oo haweenka Soomaaliyeed ee ku lugta leh kalluumeysiga iyo dhaqaalaha badda ee codkooda iyo danahooda ka dhex muujin karaan. Sidoo kale waxaa socda diiwaangelin qaran oo lagu sameynayo haweenka ku sugan dhammaan gobollada dalka ee ka shaqeeya ama daneynaya la tacaamulka badda iyo kheyraadka, taasoo fududeyn doonta qorsheynta adeegyada iyo taageerida tooska ah ee loogu talagalay haweenka. Waxaa intaa dheer sidoo kale wasaaradda waxay qaaday tallaabooyin qiimeyn iyo ballaarin ah si loo fahmo caqabadaha gaarka ah ee haweenka ka hor istaagay inay si buuxda ugu faa'iidaystaan fursadaha dhaqaale ee badda. maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee aad kala kulanteen hirgelinta hindisayaashan iyo siyaasadahan, sideese daneeyayaasha kala duwan u taageeri karaan dadaalada aad wadaan? Caqabadaha ugu waaweyn ee la kulanno waxaa ka mid ah xog la'aan oo dhammaystiran oo ku saabsan tirada, baahiyaha iyo xaaladaha dhabta ah ee haweenka Soomaaliyeed ee ku sugan dhaqaalaha badda. Sidoo kale maalgelin xadidan oo ku saabsan barnaamijyada gaarka u ah haweenka, iyadoo lagu jiro markaa jawi dib u dhis iyo deganaan bulsho oo nugul. Sidoo kale waxaa iska jiraan caadooyin iyo aragtiyo dhaqameed oo caqabad ku ah ka qaybgalka firfircoon ee haweenka, gaar ahaan marka laga hadlayo shaqooyinka farsamada iyo hogaaminta ee la xiriira badda. Sidoo kale waxaa jiraan kaabayaasha oo liita sida xarumaha tababarka, qalabka shaqada iyo fursadaha suuq-geynta ee gaarka u ah haweenka. Marka si wax looga qabto arrimahan, daneeyayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah waxay gacan ka geysan karaan taageeridda farsamo iyo dhaqaale ee lagu horumarinayo xarumo tababar iyo xirfado badeed oo la dhisayo haweenka. Sidoo kale dhiirigelin iyo maalgelinta mashruucyo horseedaya dhaqaalaha buluuga ee la gaarsiinayo sidoo kale haweenka, sida ganacsiga kalluunka, farsameynta kalluunka iyo hal abuurka tiknoolajiyada badda. Sidoo kale ka qayb qaadashada xoojinta xog ururinta iyo cilmi baarista la xiriirta haweenka badda iyo ka qaybgalka ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha. ugu dambeyn, maalintan caalamiga ah ee haweenka badda, fariin noocee ah ayaad jeceshahay inaad u dirto haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ku haminaya xirfadaha badda? Munaasabadan qiimaha leh ee maalinta caalamiga ee haweenka badda 18 May waxaa fariin dhiirigelin, kalsooni iyo rajo leh u diraya haweenka gabdhaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. Badda waa il fursad iyo horumar, haweenkuna waa laf-dhabarta bulshada. Waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad si geesinimo leh u raadisaan, u barataan, una horumarisaan xirfadaha la xiriira badda iyo dhaqaalaha buluuga. Soomaaliya waxay leedahay xeebaha ugu dheer Afrika, waxaana waajib inaga saaran yahay inaan haweenka Soomaaliyeed ka dhigno kuwa hoggaan ka noqda ka faa'iideysiga kheyraadkaas. Waxaa jiri doona caqabado, laakiin waxaa sidoo kale jiri doona fursado. Hana ka baqan inaad qaado tallaabada koowaad. Wasaaradda kalluumeysiga marka waxay idin siin doontaa garab, waxayna sii xoojin doontaa dadaalada ku aadan kor u qaadidda codkiina, fursadiina iyo doorkiina ee ku aadan haweenka badda. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Ikraan Maxamed Cabdulaahi, agaasimaha horumarinta shaqaalaha iyo arrimaha haweenka, wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee Soomaaliya. balse iminkana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal heesta Soomaali u diida ceeb oo ay ku luuqeynayso fanaanadda Maryan Mursal Ciise.
waa hagaag dhegaystayaal aan intaas uga gudubno heestaasi ay ku luqeynaysay fanaanada Maryam Mursal waxay ugu dambeysay barnaamijkeena tubta nabadda oo toddobaadkan halkan idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faa'iise Cabdi Warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysaneysaan